kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena xigashada wararka. Fadlan haddaad ugu cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kalena gambaleelka furo si aad u ogaato wararka iyo warbixinada iyo macluumaadka iyo muuqaalada aan halkan idiin soo gelino. War degdeg ah, maanta waxaan rabnaa in aan halkan ka shaacino warbixin laga qarinayay maalmahan baraha bulshada. Warbixintaas oo ah fanaanka Qamar Sugaani oo lagu hayso lacag cadadkeedu dhan yahay 13,000 oo dollar. Haddaba maskaxdaada waxaa ka guuxaya yaa ku haysa lacagta, sidee loogu haysaa lacagta, maxaase keenay in fanaan lacagta lagu haysto? Intaasoo dhan anaga faahfaahin ka siin doono. Intaynu u guda gelin, fadlan walaal macaan subscribe noo saar channelka, sidoo kalena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela xogta aanu bartan soo gelino. Sidaan wada ognahay, fanaanka Qamar Sugaani ayaa fanaanada Ugbaad Aragsan hore u qabay, walow ay baryihii dambe kala tageen oo uu guursaday gabadh lagu magacaabo Nasiim oo ku nool dalka Ameerika. Sidaan wada ognahay, waxaan maalmaha loo ololeynayay sidii loo geyn lahaa Ameerika oo fiisa loogu xarayn lahaa, balse markii ay fanaanka arrintu isugu toostay oo arooskooda looga tumayay Ameerika, ayaa waxaa soo shaac-baxday fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa 13,000 oo dollar ka rabta Qamar Sugaani, walow aysan hortiisa ka sheegin, balse rag odayaal ah oo faamiliga ay u soo sheegtay cabashadaasi. Raggii ayaa u yimi Qamar Sugaani oo u sheegay lacagta 13,000 ee dollar ay ka rabto jacaylkiisii hore ee Ugbaad Aragsan. Fanaanka Qamar Sugaani ayaa idhi anigu lacagta ma qabo, balse odayaashii yeeli waayay waana laga diiday, maadaama oo gabarta wejigeeda ka muuqday hadalkay sheegtay inuu yahay hadal dhab ah. Fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa sheegtay markay isqabeen labadooda lacag 13,000 oo dollar ah inay amaahisay, kuna yidhi show ayaan ku soo qabanayaa dalka Ethiopia iyo Kenya iyo dalal badan. oo fanaanada ayaa la sheegay inay lacagta ka soo hoysay showyo ay qabatay iyo xayeysiimo kombaniyo u xayeysiisay. Daawadayaal, markii ay arrintii dhacday, Qamar Sugaani inuu diido dabcan lacagtaas, balse markii ay arrintaas maqashay xaas uu qabo Qamar Sugaani ee Nasiim ee joogta dalka Ameerika, ayaa tidhi anaa bixinayo lacagtaas. Intii dooda lagu mashquulsanaa ayaa ay gabadhii lacagtii soo dirtay oo tidhi halkaa hadalka ku joojiya.